أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan maanta meeshaan ku sharaxno farqiga u dhexeyn kara waxa la hayo current asset and fixed asset. Marka laga hadlayo assetska waxaa loo kala saaraa laba nooc oo asset ah. Nooca koowaad waxaa la dhahaa current asset, nooca xigana waxaa la dhahaa fixed asset. Then asset haddii u imaano, asset waxaa laga wadaa hantida guud mise waxyaabaha guud oo kambaniga haysto uu ku shaqeynayo. Wax walba oo kambaniga haysto waan ugu talagalay inuu ku shaqeysto waxaa la dhahaa asset la dhahaa. Hantidaas oo assetka la hayo oo ku shaqeysanayo kambaniga laba nooc ay noqon karaan. Nooca koowaad waxaa la dhahaa current asset. current asset waxaa laga wadaa waxaa waaye asset isticmaalkiisu uu ku xiran yahay xilli gaaban. It means how assetkaas waa isticmaali kartaa waqti gaaban isticmaali kartaa after that ugu dhamaanaa meelaha. Ama current asset waxaa la dhahaa asset walba oo si fudud loogu bedeli karo cash oo laga dhigi karo lacag. Labadaas qeexitaan uu leeyahay waxaa la dhahaa current asset. Asset walba oo waqti gaaban isticmaaleyno kadibna dhamaanayo kaas waxaa la current asset. Mise asset walba oo inaan ka dhigno lacag oo aan bedelno mise aan iibino si uu u noqdo cash ee waqti gaaban qaadanayso waxaa la current asset. Current assetska waxaa ka mid ah inventory. Inventory waxaa waaye alaabta baqaarka kugu jirta oo u diyaarsan inaad iibisid waaye. alaabtaas baqaarka kugu jirta oo u diyaarsan in la iibiyo waxaa waaye current asset waaye. Because of wuxuu u noqotay current asset waxaa waaye inaad alaabtaas iibisid oo ay noqoto lacag noqoto waxay kugu qaadan kartaa waqti gaaban ay kugu qaadanaysaa waaye oo ah waqti ka yar haasan ay kugu qaadanaysaa. Mise inventorygaas baqaarka kugu jira inaad haysatidna waqti gaaban ay qaadanaysaa maadaama uusan long term ku yaaleynin oo waqti yar kadibba uu baxaayo waxaan inaa current asset waa kaas. Current assetska waxaa ka mid ah cash, waxaa ka mid ah account receivable ka mid ah all of that. sababta u noqdeen current asset waxaa waaye kuwaasoo dhan inaan lacag ka dhigno oo aan bedelno waqti gaaban ay ugu qaadanaysaa waaye. sidoo kale waxaa jirta waxaa fixed asset. fixed assetka waxaa laga wadaa waxaa waaye in aan assetkan aan haysano oo aan ku shaqeysano waqti dheer ay qaadanaysaa oo waqti dheer ama naga dhamaanayo waqti dheer aan haysan karnaa. Ama waxaa laga wadaa fixed assetkan aan haysano inaan ka dhigno lacag oo aan bedelno iidan waqti dheer ay qaadanaysaa. Example oo kale la fixed assetska waxaa ka mid ah machineska haysano, buildingka mise guriga aan anaga leenahay oo kambaniga leeyahay, baabuurta haysano waxaasoo dhan waxaa waaye fixed asset. sababtoo noqdeen fixed asset waxaa waaye baabuurkaas iyo mashiinkaas isticmaalkiisa waxay qaadanaysaa long term ay qaadanaysaa. It means waxaa waaye waqti dheer aa isticmaali kartaa waa ma dhamaanayo si degdeg ah ma ku dhamaanayo maadaama uusan si degdeg ah kaaga dhamaanaynin mise aana si fudud loo bedeli karin oo lacag laga dhigi karin waxaan dhahnaa fixed asset waaye. farqiga u dhexeeya fixed assetska current assetska intaas ku soo koobayna. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.